Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada sheeko yar oo ku saabsan hackerkii xaday lacagta. Cali wuxuu ahaa nin da'yar oo aad u caqli badan. Tan iyo yaraantiisii wuxuu xiise weyn u qabay kombiyuutarka iyo internetka, wuxuuna baran jiray barnaamijyada sirdoonka, hababka ammaanka internetka, iyo sida loo jebiyo nidaamyada adag. Wuxuu lahaa maskax aad u firfircoon, balse nasiib darro wuxuu go'aansaday inuu xirfadiisa u isticmaalo waddo khaldan. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo gurigiisa ku sugan, wuxuu helay fursad dahabi ah. Wuxuuna ogaaday in bangiga weyn ee magaalada uu leeyahay nidaam ammaan oo duugoobay. Isagoo adeegsanaya xirfadiisa, wuxuu si sir ah ugu xirmay nidaamka bangiga, wuxuuna helay xogta macaamiisha. Cali wuxuu samaystay akoon been abuur ah oo uu lacagta ugu wareejin karo xisaabaadka dadka kale. Wuxuu si taxaddar leh u wareejiyay lacag dhan 500 oo kun oo uu ka kala saaray dhowr accounts si loo waayo raadkiisa. Muddo 3 maalmood ah, cidina ma dareemin in lacagta lagala baxay, balse maalintii afraad, bangiga ayaa ogaaday khaladka dhacay. Degdeg bay booliiska ugu yeereen, waxayna bilaabeen baaritaan xooggan. Cali wuxuu dareemay in laga shakiyay, markaasuu isku dayay inuu waddanka ka baxo, wuxuuna diyaarsaday. Laakiinse wuxuusan ogeyn in ay la socdeen xogtiisa booliiska waddanka oo markaasi ku guda jiray inay soo helaan Cali oo ahaa ninkii isku dayay inuu bangiga dhaco, kana baxay lacag gaaraysa 500 oo kun. Waxaana lagu soo qabtay garoonka diyaaradaha gudihiisa, waxaana la geeyay xarunta booliiska isaga oo lagu sameeyay baaritaan dheeraad ah. Waxaana loo gudbiyay maxkamadda isaga oo lagu xukumay 10 sano xabsi ah. Daawade, xirfadaadu ha u adeegsanin qaab sharci darro ah. Haddii aad leedahay xirfad, waxaad u adeegsan kartaa labada qaab miduun: inaad u adeegsato qaab wanaagsan iyo inaad u adeegsato qaab aan wanaagsanayn. Qaabka aan wanaagsanayn waxay kugu hagi kartaa inay noloshaada soo afjarto. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biiro calaamadda subscribe-ka noo taabo.